رب اجعل هذا بلدا آمنا ودعادي النبي إبراهيم واي oo duceeyay Makka iyo Sacuudiga waxay kala degmadaan ay caan ku tahay ilmo badan oo ma aragtay oo ay sabab u tahay inay xalaaleyso waxa lagu soo boowi jiray wax dhaqan ahaan jiray lagu sameyn jiray oo gabdhaha waqti la soo boowi jiray ay jirtay STV Soomaaliya ayaa soo booqatay degmada qadiimiga ah ee Walaweyn sidoo kale loo yaqaan Daafeed waa mid kamid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka Soomaaliya waxa ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo waxyaabo badan halkan caan ku ah maalmo ayaan halkan ku sugnaan doonaa sidoo kale su'aalo dhowr ayaan weydiin doonaa dadka halkan ku nool sidoo kale warbixin idin xiiso geliyay ay STV Soomaaliya inta maalmaha halkan ay joogto dabcan idin soo diyaarin doonta waxa ila joogo mid kamid ah dadka magaaladan way jooga u soo ahaa waqtiyadii burburka iyo waqtiyada haddaba soo dhaw ka waran Walaweyn maantana waa joogtaa inaan isku aragna aad ugu faraxsanahay soo dhaw STV horta marka hore ku soo dhaw aad iyo aad STV waa u mahadcelinahay iyo inta ku xiranba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada degmada Walaweyn waxay degmadan ay caan ku tahay waa degmo qadiimi ah dadkeeda aad iyo aad u wanaagsan soo dhaweynta haddii maanta يعني guriga tagtid hadda waxaan aan ku naqaana degmada Walaweyn guriga tagtid hadii aad dhahdid qof safaran ahay in lagu soo dhaweynayo jiif aad heli kartid waxay kala degmadan ay caan ku tahay ilmo badan oo ma aragtay oo ay sabab u tahay inay xalaaleyso waxa lagu soo boowi jiray wax dhaqan ahaan jiray lagu sameyn jiray oo gabdhaha waqti la soo boowi jiray ay jirtay marka 90 kilomitir ka xagga ay dadka ay keeni jiray xamar iyo Walaweyn waxa u dhaxayso 90 kilomitir marka dadka hore waxa ka dhaadhacsanay 90 kiilo in gabadha la boowi karo in kasto aysan dhaqan la ahayd marka 90 kiilo wax yara ka harsan war inta ku taalo ay gaaraysa laakiin istaraatiijiga magaalada waa inta Walaweynna mar walba waxa waaye waxay caan ku tahay dad jaceylka hadda sida u jeedada markay lagu arkabo qof markuu banaanka yimaado wuxuu rabaa ahaado hadduu adooro caayo ahaanin laakiin haddii la dareemo inuu banaanka yimaado dadka inay wax su'aalaan ama inay wax weydiiyaan ama inay iska daba socdaan ama inay soo dhaweeyaan ay jecel yihiin marka insha Allah maalmahan kooban oo degmada aan joogno insha Allah waxyaabo badan oo waxaad arkaysaa oo ها oo kaga duwan waxyaabaha oo magaalooyinka aad ka arki doontaan insha Allah annagana kule insha Allah waa kula joognaa maalmahaas insha Allah waana barnaamij walba wadadna waa ku soo dhaweyneynaa qeybana kanahay aniga hada degmada waa la igu soo dhaweeyay anigana waxaan jeclahay insha Allah inaan idinku soo dhaweeyo idaacada STV iyo maaragtay inta ku xiranba marka ku soo dhawaad insha Allah deegaanka ama degmada Walaweyn insha Allah waa idinku soo dhaweyneynaa waa maasantahay dad badan oo reer Walaweyn ayaa dabcan halkan joogo sidoo kale waxay caan ku tahay argada marka waxa ku qoran rabbi ijcal hada albalada aamina waxa lagu qoray rabbi ijcal hada baladan aaminan waa ducadii nabi Ibraahim waaye oo ugu duceeyay Makka iyo Sacuudiga marka ilaahu ka yeel baladkan mid aamina insha Allah aaminkaasna insha Allah waa dadkeeda way haystaan waa haysana aaminkaas insha Allah ilaahay waxaan ka baranaynaa insha Allah in uu si balaariyo amnigaas iyo ma aragtay jaceelkaas insha Allah marka dadka nagu soo dhaweeyayna waa kana hadaba waa arkay aad iyo aad waa maasantahay ku soo dhaw muqbaahiyaha STV Soomaaliya ka waran Walaweyn iyo marti soorkisa isku tiin Walaweyn ma sha Allah maanta farxadan aniga lama soo koobo karo maadaama idinka aan oo imaadeen walaaleen aatiin alxamdulillah dad la jecel loo imaana alxamdulillah maanta farxadan lama soo koobo karo maadaama walaaleen qaali ah 90 kilomitir ay nooga imaadeen halka noo imaadeen waaba tan farxad waa mabla soo koobo karo alxamdulillah kamid tahay dhalinyarada magaalada ma jirtaa shaqooyin aad qabato halkan aad dabcan shaqooyinkii shaqo mooto ka ahayn aan ma qabto ma fahanti shaqadeena mooto waay mootaas iska qaraabna marka alxamdulillah waan ku qanacsanahay nolosheena mootada bajaaj miyaa mismada lawlawaleey cycle waa lawlawaleey waay halkan waxa ku taalo waxa ku qoran ama ku sawiran calanka Soomaaliya iyo sidoo kale kan koonfur galbeed oo ka tarjumaya in maamulka koonfur galbeed halkan uu joogo dawladda Soomaaliya halkan dabcan ay ka taliso dhamaantii waa maasantiin bahda STV Soomaaliya waxay idin leenahay daawasho wacan oo halkan ay isla joogna naguna si taxnaada waa maasantiin
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada